بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الرشيد محمد عبد الله الصنديري كان ميدا شغالها تلفزيون كعالمي كلسن تي في حفيزكيس مقدشو waxaan rabaa halka inaan ugu tacsiyo walaalkay Saciid Yuusuf Cali oo kamid ah howlwadeennada iyo shaqaalaha Kalsan TV Saciid hal mihnada isku jirnay hal warbaahin ama hal station waa ka wada howlgalinay Allah u naxariisto aniga shakhsiyan waxa ugu dambeysay shalay waqtiyadii galabkii ama 9 saac barxiliyada oo shaqada iskaga dambeynay كلي شقدي أو قبناي هولو هيستينا هولا أد في عني أهايين أو ضد كان سوماليات أما شعب كسومالي لوجا ديجا يو هول أو أد مهم وصحافة قلي قفل بإدراء مكرته سعيد كل وقت سديت سنة ما تدوسنا واسنا قاني وحنا كشغين جري وربهينا كل دوان أنا جا مدرب وحكوا قاني هذه ستار إف اللي يجري إلى يوم حريستو كتاب كيس مديك الله كسيو wuxuu nin zaciima nin aad u wanaagsan nin aad u qiimo badan nin dadka tixgeliya nin xishooda nin samar iyo iimaan badan ilaahay ha u naxariisto eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo xaaskiisa waxa kaga tacsiinaya geerida sidoo kale anagana bahda Kalsan TV hadaan nahay yaani xanuunka iyo murugada waa la dareemeynaa sababtoo ah shalay qof wada shaqeynayeen oo subaxda hore howlgaleyseen shirkii subaxda nagala qayb galay oo wararka caadiga wax ka soo saaray oo qodobareed oo shalay wuxuu galay xasuusteedii macallin dugsi quraan oo lagu dilay degmada Afgooy qodobkaas oo galay xataa wax xasuusta marka Saciid wuxuu ahaa nin aad u afgaaban nin zaciima nin dadka jecel nin yaani inta badan tanaasul badan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dhamaanteen qalqay oo na abuuray waxa ka weydiisanaynaa in yaani naxariis janno oo siiyo eheladii iyo qaraabadii samir iimaan Ilaahay inuu sidoo kale ka siiyo